saaxiibada madasha ka baxay dawladda la gaaray heshiis afgarad ah arrintaas sideed u aragtaan runtii annaga dee nimankaas odayaasha ah fiidkii isniinta ayay madasha u yimaadeen waxayna ka codsadeen in ay keeneen istiqaalo ay yiraahdeen waxaan rabnaa in nala fasaxo oo aan madasha ka istiqaalano oo aan ka baxno annagana dee madasha markii horeba dadku waxay ku yimaadeen si maaragtay mutadawacnimo oo volunteer ku yimaadeen duruufaha ay sheegeen iyo sababta u baxayaan markaan dhageysanane annagana waa garowsanay in ay madasha istiqaalada ay soo gudbiyeen in laga aqbalo madashta ogtahay mabaadi'ay ku dhisan tahay wadahadalkii aan kula jirnayna madaxweynahana mabaadidaas buu ku dhisnaa marka annaga ma aragno in madaxweynaha weli mabaadidii iyo qadiyadii aan isku haysanay ee dalka as mucaarad ahaan inay wax iska bedeleen annaga weli uma aragno watahay waxaad tiri iyaga dalabka soo gudbiyey annagana waa ka aqbalnay daruufaha keenay marka daruufaha keenay in ay dalbadaan inay ka baxaan madasha maxay tahay taas in ayaga la weydiiyo ila fiican adinka maxay idin sheegeen ayaga inaa weydiisaa fiican waxaas waa wax gudaha madasha ah rag odayaala oo madasha ka tirsan oo waraystay dalbaday inay madasha ay ka istiqaaladaan waaye duruufii ay noo sheegeen iyo asbaabtii ay noo sheegeen inaa ayaga weydiisaa fiican maadaama ay joogaan laakiin xildhibaane waxaa la isweydiinayaa xilligan maadaama aad muddo hawshan wadeen isku hadaf aad ahaydeen hadda maxaa keenay dad badan waxay isweydiinayaan waxa keenay in mucaaradka ay kala jabaan waxaa fiican dee maadaama ayaga istiqaalada soo gudbiyeen aan ku dhahay ayagana ay sheegeen inay dawladda wadahadalka la sii wadaan oo heshiis la gaaraan inaa ayaga weydiisa sababta fiicnaa lahayd waayahay marka uma hadli karo aniga ayaga qodobada laga heshiiyey